dagaalkii iyo sidoo kale hub isku aruursigii iyo Axmed Madoobe iyo sidoo kale kooxda Villa Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaaday in la isugu yimaado hal miis isla markaana si toos ah loo wada hadlo iyagoo sidoo kale khadka taleefanka ay isugu belamiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale Axmed Madoobe. ugu dambeyntii Mareykanka ayaa sameeyay farigelin toos ah oo ku soo farigelinayo howlaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku doonayay Jubbaland sidoo kale inuu kursiga uu ka tuuro madaxweynaha iminka talada Jubbaland haya Axmed Madoobe kaas oo dhaxmaray muddo sanad iyo wax la jiro dagaal foolka isla markaana si toos ah uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qorsheeyay inuu magaalada Kismaayo toos u weeraro isagoo sidoo kale aruursaday hub iyo sidoo kale ciidamo kuwaas oo la sheegay inay yihiin ciidamo khaas ah sidoo kalena ka soo jeedaan beesha Mareexaan kuwaas oo looga talagalay in si toos ah Kismaayo weerar ay ku galaan isla markaana gacanta ay ku soo dhigaan hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Mareykanka sheegay inay arintaasi aysan noqonayn wax soconaya gabi ahaanba. Villa Soomaaliya waxay qorsheynaysaa weerar toos ah oo ay ku qaadayso Kismaayo iyo sidoo kale madaxtooyada Jubbaland iyadoo ujeedada ugu weyn ay ahayd in gacanta lagu soo dhigo Axmed Madoobe isla markaana lagu soo dejiyo magaalada Muqdisho si looga maxkamadeeyo maxkamadda sare ee dalka isla markaana dowladda Soomaaliya ay la tiigsato cadaaladda sharciga waafaqsan iyagoo sidoo kale ku eedeysay inuu yahay eedeysane isla markaana ka dambeeyay oo daadiyay dhiigga walaalo iyo sidoo kale ciidamada xoogga ee dalka Soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa Villa Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii la sheegay inay ku fashilmeen arrinka iyagoo ay doonayeen kadib markii Mareykanka uu faragelin rasmi toos ah uu ku sameeyay. sidoo kale Mareykanka wuxuu baajiyay reedii madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay kadib uu ku dhawaaqay ama uu ku celcelinay in mar dambe la isugu laaban doonin teendhada la isugu imaan doonin sidoo kalena dalka ay ka dhici doonto ama madaxweynaha 2026 la dooran doono oo ku imaan doono doorasho qof iyo cod ah taasoo madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka iyo mucaaradkaba ay si aad iskugu khilaafeen sidoo kalena ay sababtay in dadka qaarkii ay u dhintaan in wadooyinka Muqdisho shacabkiina lagu qasbo inay si xoog ah isku diiwaan galiyaan maadaama dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah. Mareykanka oo soo fargeliyay ayaa sheegay in taasi ay tahay riyo maalmeed iyo sidoo kale riyada xasan sheekh maxamuudna aysan ahayn wax kaliya ay ka soconayso dalka Soomaaliya laakiin ay tahay waxa Mareykanka uu ka doonayay in dalkan ay ka socdaan. qorshaha Mareykanka ayaa ah in gabi ahaanba aysan siyaasiyiinta Soomaaliyeed wax iyaga ay doonayaan inaysan ka socon laakiin amarka uu soo saaro Mareykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan sidoo kalena ujeedada ugu weyn ay tahay kursiga maadaama madaxda Soomaalida Mareykanka iyagu ay u dhiibteen inay uga fadhiyaan mas'uulna ugu yihiin ee dalka ka wakiil ahaan Mareykanka ayaa ku qasbanaadeen inay ka tanaasulaan fikirkooda. xasan sheekh maxamuud ayaase ugu dambeyntii riyadiisa ay noqotay wax aan soconaynin kadib markii Mareykanka uu ku qasbay inuu ka tanaasulo fikirkiisa. sidoo kale Mareykanka wuxuu amar buuxda uu ku siiyay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu wadaxaajood uu la galo khadka taleefankana si toos ah ula hadlo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe si looga hadlo arinta ka taagan colaadda ay sababtay in isaga iyo Axmed Madoobe ay seesaan sidoo kalena hubaba isku aruursadaan. dhowr qorshe ayaa la sheegay inuu Mareykanka uu fashilay ay ka mid tahay inuu Axmed Madoobe qorsheenayay inuu weeraro Jubbaland gobolka Gedo weerar toos ah ku qaado isla markaana mar kale gacanta ku soo galo isla markaana uu la xisaabtamo beesha Mareexaan ee halkaasi ay taageertay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale inay ku biireen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay jibiyeen ciidamada xoogga ee Jubbaland. arrintaa waxay noqotay mid saameyn badan kadib markii oo la sheegay in arinta ay faraha ay ka sii bixiyso madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa gaaray gobolka Jubbaland agagaaraheeda isagoo sidoo kalena diyaarinaya la sheegay ciidamo xoog badan taasoo marka waqtigeeda la gaaro hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo halkaasi ka dhaqaaqi doono Kismaayo isla markaana u dhaqaaqi doono dhanka gobolka Gedo ciidamo gobolka Gedana lagu weerari doono ciidamo aan qofka maskaxda bini'aadamka aysan suuraysan karin taasoo ujeedada ugu weyn ahayd in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi jooga gacanta lagu dhigo iyagoo sidoo kalena wax faragelin aan sameynin hubna aan qaadin. ujeedada ugu weyn Axmed Madoobe waxay ahayd in gobolka Gedo lagu soo celiyo gacanta Jubbaland isla markaana iyagoo hal xabo rasaas aan dhicin afarta gees ee magaaladana ay ka soo galaan ciidamada taabacsan Axmed Madoobe iyo sidoo kale ciidamo kuwa oo la isugu keenay oo u diyaara inay difaacdaan Jubbaland kuwaas iyo dhinac uu ka hogaaminayo hogaamiye
hogaamiye ku-xigeenka ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, dhinaca kalena Axmed Madoobe iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada ee Jubbaland ayaa la sheegay in markii ay halkaasi ay galaan taliyaasha ciidamada dowladda xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan oo ugu horeeyo Cabdirashiid Janan uu yahay dowladda Soomaaliya u magacaawday taliyaha nabadsugidda ee gobolka sidoo kale taliyaha nabadsugidda ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaase la sheegay inay dooneysay Jubbaland inay gacanta ay ku dhigto intaasiba iyagoo sidoo kale wax rasaas halkaasi ka dhicin. qorshaha ayaa fashilmay ugu dambeyntii kadib markii Mareykanka uu fashilay. sidoo kale qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahayd inuu Kismaayo ay galaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ciidamadaasi ay ciidamada xoogga yihiin balse ay ka sii ahaayeen beesha Mareexaan oo sidoo kale dowladda Soomaaliya u ballan qaaday inay siidayso wax kasta iyagoo ay u baahan yihiin sidoo kalena si rasmi ay ugu mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidamada beesha Mareexaan ayaa la sheegay inay heleen xuquuqaad kasta oo ay u baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana loo diyaariyey inay galaan magaalada Kismaayo maadaama iyagu ay yihiin beesha kaliya halkaasi loolanka kula jirto madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. waxaase la sheegay in beesha Mareexaan haddii ay gacanta ku soo dhigaan Axmed Madoobe aysan noqonaynin cawaaqib xumo maadaama iyagoo colaade ay kala dhaxaysay sidoo kalena dhowr sanadooyin ka horna ay isdagaaleen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa taa hore ee gobolka Gedo oo dib ugu gacan geliyey Jubbaland iyagoo doonayay inay si gaar ah isugu madax baneeyaan sidoo kalena ay doonayeen inay noqdaan dowlad goboleed gaar oo ka tirsan dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyntii waxaase la sheegaa in qorshahaasi oo idil ay noqdeen kuwo fashila kadib markii Mareykanka uu sheegay in waxaasi oo idil ay yihiin riyo maalmeed isla markaana aanu ahayn wax soconaynin. Mareykanka ayaa sheegay in hal qof wuxuu u baahan yahay oo kaliya Soomaaliya aysan ka socon doonin taa bedelkeedana loo baahan yahay in waxa siyaasiyiinta iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil ay doonayso ay yihiin waxa rasmiga oo kaliya oo ka socon karo gudaha dalka ee Soomaaliyeed. maxaa lagu amray Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya. Mareykanka waxay sheegtay in wada hadlaan kadib ay soo saaraan war rasmi ah maadaama dalkii doorasho qof iyo codka dib looga laabtay. ujeedada in Axmed Madoobe laga qaadana Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya imika wax dana ugu jirto iyadana si marka loo eego taasi waxay noqon kartaa in marka kaliya maadaama awoodda waxay dib ugu noqon doontaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo markaa loo baahan yahay dowladda Soomaaliya inay ku qanciso Axmed Madoobe inuu mar kale dowladdiisa daacad u noqdo isla markaana kala shaqeeyo doorashada soo socota 2026 sida loo aadi lahaa ee teendada. sidoo kalena xildhibaanada Jubbaland ay taageeraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u baahan yahay si uu codadka oo madaxtinimada 2026 u helo xildhibaanada ka soo jeeda ee Jubbaland maadaama Jubbaland oo idil ay mucaarad ay ku yihiin dowladda federaalka Soomaaliya. markani xasan sheekh ayaa dan ka leh ee dowladda Jubbaland isagana ayaa danta ku kalifaysa inuu wada hadal oo rasmi ah la yeesho madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam isla markaana uu bixiyo raaligelin iyo sidoo kale wax kasta oo ay doonayso ee dowladda Jubbaland iyo sidoo kale maalgelin iyo mashaariic intaba oo ay siiso imika dowladda federaalka Soomaaliya ee dowladda xubnaha federaalka ka ee Jubbaland si ay codka madaxweyne xasan sheekh maxamuud u helo sanada 2026 doorashada dalka ka dhici doonto oo mar kale teendada afisiyoona dib looga laaban doono halkaasi lagu soo dooran doono madaxweynaha talada 4 sano ama 5 sano ee soo socota ee dalka Soomaaliya.